Ismaamulka gobolka Tigreeda oo digniin u diray dowladda Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka gobolka Tigreeda ayaa ka digay in go'aanka aqalka sare ee Itoobiya uu ku gaaray gobolkaas in laga goosto taageeradii la siin jiray, taasi uu ku sheegay in xaaladdu ay sii xumayn doonto. Hadalkiisa ayaa imaanaya kadib markii aqalka sare ee dalka Itoobiya uu ugu baaqay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in xukuumaddu ay maalgelinta ka goosato dowladda Tigreeda kadib markii uu gobolka u qabtay doorashooyin goboleed, isla markaana ay ka dhaga adeegeen amarkii guddiga doorashooyinka heer qaran. Xukuumaddu waxay gobolka Tigreeda ka saaraysaa nidaamka federaalka. Taasi waa mid aan la aqbali karin gebi ahaanba, ayuu yidhi Abraham. Balse dowladda Tigreeda ayaa diiday go'aankaas. Toddobaadkii la soo dhaafay waxay ku dhawaaqday inay qaadan doonin amarka dowladda federaalka oo ay ku sheegtay inuu xilligii ka dhacay. Afhayeenka aqalka federaalka ee Itoobiya Adam Farax ayaa ku eedeeyay dowladda Tigreeda inay si sharci darro ah u qabatay doorashooyinka gobolka.